بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal waxaan ku dhex jirnay barnaamijkeenii duruus ramadaaniya maadaamaaynu ku jirno bisha barakeysan ramadaanka. waxaan rabaa inaan kelmadeyda aan kaga hadlo fadliga uu leeyahay qiyaamka, in muxuu ahaa qofka uu istaago habeenkii uu salaad uu dugto, muxuu ahaa taraawiixdii tahajudkii uu ku dadaalo. fadliga qiyaamka uu leeyahay aan ka hadli doonaa. nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiiskan wuxuu ku leeyahay: man qaama maca imaamih xataa yansarif kutiba lahu qiyaama alleyl. nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, qofkii istaaga habeenkii u istaaga salaada, micnaha aan salaada marna aan ka tegin ilaa imaamku uu salaadii uu ka baxo, qofkaas waxaa loo qoraa isagoo habeenkii oo dhan soo jeeday oo kale ayaa loo qorayaa. sidoo kale caaisha radiallahu canha waxay leedahay nabiga calayhi salaatu wasalaam qiyaamka habeenkii ma uusan ka tegi jirin rasuulka calayhi salaatu wasalaam, xitaa haddii uu xanuunsado ama muxuu aha uu caajiso hataa fadhiga ayuu ku dukan jiray. taa waxay kusanaysaa in muxuu ahaa la nooleeyo oo habeenkii lasoo jeedaa oo qiyaamka qofka uu sameeyo inay tahay wax aada iyo aada u weyn inay tahay. xadiiska nabigu wuxuu ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam: ayuha annaas afshu salaam wa atcimu aطacaam wasilu larxaam wasalluu billeyli wannaasu niyaamun tadkhulu ljannata bisalaam. nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, salaantana faafiya, dadkana quudiya, qaraabadana xiriiriya, habeenkiina muxuu ahaa dugta, dadka markay hurdayaan jannada ilaahay aad si nabadgelyaha ku gali doontaan. sidaa awgeed waxaa muhiima inaynu ku dadaalno qiyaamka iyo muxuu habeenkii in la istaago, inaynu ku dadaalno, aada bay qaali u tahay. sidoo kale in muxuu ahaa ehlada la toosiyo oo muxuu ahaa adiga keliya aadan dukaninin, aada toosisaa caruurtaada iyo xaaska in la toosiyo iyagana ay dugtaanna, iyadana muxuu ahaa aada bay qaali u tahay. sayid cumara wuxuu ahaa radiallahu canhu markuu salaadu markii habeenkii uu kaco uu dugto, ehelkiisa ayuu toosin jiray isagoo weliba aayaddan ku dul akhrinaya: waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha laa nas'aluka risqan naxnu narsuquka waalcaaqibatu litaqwa. sidaa darteed waxaa muhiima in muxuu ahaa ehelada iyo wax dhan la toosiyo oo muxuu ahaa iyagana ay dugtaan salaada, oo xaaskaaga aad toosiso, ehelka kaleo guriga kula degan aad toosaasaa qiimo aada iyo aad u wanaagsan. laakiin adiga kale haddaad tooso dad kale ay hurdayaan, taa ayadaa wax qiimo badan maaha. marka dembi dhaafaa lagu helaa, ilaahay dembigaada uu ku dhaafaya markaa qiyaam aad samey salaada u istaagto. waxaa laga yaabaa dad badan oo inaga mida inay aada iskaga sahashanayaan. marka walaalkayga muslimka ha sahashanin oo muxuu ahaa bisha way iska idlaan doontahay, adiga khayrka ka faa'iideyso. bal u fiirsa xadiiskan nabiga, xadiis saxiixa oo bukhaari iyo muslim ay warinayaan, iyo wuxuu ku leeyahay: man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi. qofkii istaaga ramadaanka ee qiyaamka u istaagay isagoo weliba rumayn iyo iimaan iyo ajri xusuus ay ka tahay, ilaahay dembigiisa hore wuu deynayaa. marka si ilaahay dembigeedana uu u daayo faraha badan, waa in muxuu ahaa aynu ku dadaalno qiyaamka iyo in lagu dadaalo, oo muxuu ahaa qofka uusan marna uunan ka gaabinin. naftayda iyo tiinan waxaan u daarmayaa in arrinta ayadaa lagu dadaalo. wajazaakum allahu khayr, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.